ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقارتنا شرفت لك وحرن kanaalkeena bara af Ingiriis oo ah kanaal ugu talagalnay in aan ku soo gudbino casharo ku saabsan barashada afka Ingiriiska. Waxaan idin leeyahay Ramadaan Kariim. Ilaahay inaga dhigo kuwi wanaag fara badan iyo khayr fara badan oo shaqaysta oo Ramadaankan ka faa'iideysta. Ilaahay kankiisa kale ha inuu gaarsiiyo khayr iyo baraari iyo barwaaqo. haddii aan soo laabto cashirkeena maanta waa cashirkeenii 8aad qaybtiisa 2. waxaan idin soo jeedinayaa anigoo ah Zakariya Maxamed. fadlan haddaa ku cusub tahay kanaalka subscribe, share, like si anaga ay noogu noqoto dhiirigelin aadna uga faa'iideysatid waxyaabaha ama muuqaalada aan soo dhigano ama casharada aan soo gudbino. mahadsanid. fadlan cashirkan haddaa ku cusub tahay waxaan kugula talinayaa cashiradeena hore inaad dib ugu laabatid saa ula soo qabsatid oo soo gaartid halkaan hadda taagannahay. mahadsanidin. haddaan dib idin xasuusiyo cashirkeenii hore oo 8aad qaybtiisa 1 waxaan kaga soo hadlaynay articles anagoo ku darsanayna a or an iyo the. xogaan oo soo faahfaahinay weli laakiin faahfaahintiisa dhexda kaga jirnaa. saas darteed waxaan u sameynay cashirkeenii 8aad qaybtiisa 2 saas si fiican ugu sii faahfaahino oo wax badan uga fahanno intaan cashirkeenii 9aad u gudbin. mahadsanidin. haddaan ku bilaabo cashirka weli wuxuu ku saabsan yahay articles plus noun. articles plus noun. articles waxaa laga wadaa xarfahan a, an iyo the. waxaan soo sheegnay a or an inaan u isticmaalno ama aan ka hormarsiino consonant ama vowel aan casharadiini bilowga ahaan kusoo baranay. laakiin weli halkan weli isla sidii waan taagannahay laakiin waxay ka duwan yihiin cashirka hadda inta aan ku baranayno. a or an waxaan ku tilmaamaynaa shay aan qaas inoo ahayn ama aan garanayn laakiin mid ba ha ahaado ama qof ba ha ahaado ama wuxuu doon ha ahaado shay aynoon muxuu ahaa tilmaaneen inaan ku tilmaano ama aan ku cabirano. ereygan de waxaa ugu talagalnay shay aan wada naqaano ama inoo wada tilmaaman ama aan wada aragno inaan ku tilmaano ama sifa aan ku siino. haddaan ku bilaabo waxaa inoogu horeeyo I waxay ahayd aniga. I planted waxaan abuuray. abuuritaankan waxaa loo isticmaalaa dhirta. plant waa dhir, planted waa abuuritaan dhir. I planted a tree waxaan abuuray geed. adan waxay ka turjumaysaa a tree geedka nooca uu yahay iyo sifada uu yahay wuxuu yahay ma tilmaana maba inoo tilmaano wuxuu yahay. I planted a tree in my garden. in my garden. my waxay ahayd ficilkii lahaanshaha ahaa. garden waa beer ama xadiiqo ama beer yar oo guriga qaybtiisa dhinaciisa kaga taala oo loogu talagalay in lagu nasto. and I planted a tree in my garden last year. last waa wax la soo dhaafay. last year sanadka la soo dhaafay laga wadaa. last month bishii la soo dhaafay. last day maalintii la soo dhaafay ama last week isbuucii la soo dhaafayba. marka last waxa u isticmaalaynaa wax la soo dhaafay iyo ama wax ugu dambeyn last ugu dambeyn aan ka wadnaa. halkaan marka waxaa inoogu qoran I planted a tree in my garden last year. beerteeda guriga waxaan ku abuuray geed sanadkii la soo dhaafay. waxaan ku abuuray geedka nooca uu yahay nooma tilmaana wuxuu yahayna ma naqaano marka. okay. marka kan a tree marka lagu dhaho any kind of tree laga wadaa wuxuu doonaba iska ahaado noocuu doono geedkaas ha ahaado. waxaa inoogu xigay marka can you tell me ma ii sheegi kartaa a story. sheeko. story waa sheeko. marka can you tell me ma ii sheegi kartaa a story. adan waxaa u isticmaalnay waa ognahay horta s inay consonant tahay waan ka bilaabanay dhib ma laha laakiin macnaha guud aan halka aan kaga hadlayna aadaas waxay tahay a story in ma ii sheegi kartaa sheeko ba ha ahaatee sheeko noocay doonta ha ahaato sheeko qaasa ama aan doortay ma jirto kaliya waxaan ku dhahay can you tell me a story. sheeko ma ii sheegi kartaa. sheekadaas adiga dooranaysid ama waxay doonto ama soo alifaysaa waxay doontaa noqoto. can you tell me a story ma ii sheegi kartaa sheeko.
Can waxaa loo isticmaalaa inta badan ereygan can waxaa loo isticmaalaa sida wax inaad kartid ama samayn kartid oo kale. Can you tell me, ma ii sheegi kartaa? Can you do for me, ma ii samayn kartaa? Can you do this, ma samayn kartaa? waa karitaanka loo isticmaalaa badanaa ereygan can ay ka turjumaysaa. Can you tell me a story, sheeko ma ii sheegi kartaa? Do you have a pencil? Do you have a pencil? Pencil ma haysaa? Pencil waxaa la dhahaa qalin qori, qalinkan la qoro oo muxuu ahaa baashan mashiinkan lagu qoro waxaa loogu talagalay qalinkaas loogu talagalaa waxaa la dhahaa pencil. qalinka caadigan waxaa la dhahaa pen. way kala duwan yihiin. pen, pencil ay kala yihiin. Do you have a pencil? Have waxay ka dhigan tahay macnaheeda ereygan have muxuu ahaa wax ina haysid oo kale. waxaa haysid marka ka hadlaysa ama waxaa haysid lagu weydiinayo oo sida ma haysaa ama loo isticmaalayo. laakiin dhib malaan hadda waa idin dul maraya kaliya cashiradeen dambaan ku baran doona insha Allah. Do-dan macnaheedu way kala duwan tahay, laakiin hadda waxaan u isticmaalaynaa markaa su'aal weydiinaysid. su'aal markaa weydiinaysid waxaa isticmaalaysaa do. Do you have a pencil? qalin ma haysaa? Do you have a shoes? kaba ma haysaa? Do you have a car? gaari ma leedahay? marka waa qayb si su'aal waa loo weydiiyaa, laakiin macno badan way leedahay. laakiin hadda waa turjumaan. muhiimadeena taas ma muhiimadeena hadda aan baranayno waxaa waaye do you have a pencil? pencil ma haysaa? pencilkaas miduu doon ha ahaado, ama pencil cusub ha ahaado, ama pencil dhamaad ha ahaado, ama pencil yar, ama midaan qornin, ama pencil una lagu weydiiyey bas. waxaa lagu leeyahay do you have a pencil? pencil ma haysaa? okay, isla fahanaa maleyna. I want macnaheedu waxaa waaye rabitaan. rabitaan waa ereygan want. I want waxaan rabaa to buy. buy waa iibsasho. marka I want to buy an apartment. an waxa u qaadanay apartment ka horeysa. apartmentna waxay ka bilaabanaysaa vowel. an waa vowel oo isticmaalayna, laakiin muhiimadda marka waxay tahay antan macnaha hadda aan ka rabno waxay tahay marka sidii hore aan soo sheegnayba I want to buy an apartment. waxaan rabaa inaan iibsado apartment. apartment waxaa la dhahaa waa guri aad degan tahay. guri aad degan tahay sida dhismo waxaa jiro qayb loo kala degan yahay. marka qaybaa rabtaa adiga aad degtid inaad iibsato waxaa la apartment. apartment. I want to buy an apartment. waxaan rabaa inaan iibsado guri. apartment waa guri. marka aniga cashir waxaa soo barnay waxay ahayd house oo ahaa guri. ereygan house. house ahayd guri. marka house waxaa la lahaa waa guri dhismo gooni meel banaan ku yaala house la lahaa. laakiin apartment waxay ka dhigan tahay guryaha dabaqyo waxaa jiro qayb loo kala degan yahay. qof walba qayb degan yahay. qaybta qofkaas degan yahay ama aad degan tahay waxaa la dhahaa apartment. waxaa la dhahaa qaybta ka degan tahay apartment. I want to buy an apartment. waxaan rabaa inaan iibsado qaybtaas guriga ah. apartment iyo house asugu qaldin. house waa guri banaan meel gooniyaha ku yaalo xiran oo kaliga aad degan tahay la dhahaa dhismahaas oo dhan. apartment waxaa la dhahaa ku celiyo dabaq taagan oo qayb loo kala degan yahay. qaybta adiga degan tahay ama qayb qof una degnaado waxaa la dhahaa apartment. aan waxa usoo qaadanay qaybtaas guriga aan rabo inaan iibsado iyoma tilmaana. kaliya waxaan rabaa kaliya aan kuu sheegay inaan apartment iibsado, laakiin midka uu yahay kuma sheegin mana ogaan xataa. I want to buy an apartment. marka qaybtan bidix waxaan ku baranaynay or an oo cashirkeeni sideedaad qaybtiisa koowaad weli daba taagan faahfaahintiisa. qaybtan kale u gudbina anagoo ku baranayna ereygan ama xarafkan the. marka the ereygan hoose oo qalinka buluuga inoogu qoran waxay ka dhigan tahay waxa aan ka hadlayna wax inoo tilmaaman inuu yahay ama waxaan wada ognahay oo inoo wada muuqda ama isla ognahay shay khaas ah. marka haddaan ku bilaabo waxay noqonaysaa marka the tree geedka has waxay ka dhigan tahay past tense oo ah is oo ah ficil ahaansho oo hadda la taagan yahay kusoo baranay, laakiin has waa ficil lasoo dhaafay. marka ficilkan has wuxuu qaadanayay it ay ka hadlaysaa. tree waxay ka dhigan tahay wax aan nooleen ama noole aan muxuu ahaa waxaan nooleen ka dhigan tahay. the tree has grown big. geedka uu weynaaday. geedka aan ka hadlaynay waa geedkan.
I planted a tree. Waxaan abuuray ama talaalay geed in my garden last year. Waxaan ku talaalay geed qaybta dambe ee gurigayga ama xadiiqada ama beerta dambe ee guriga kaga taalo. I planted a tree in my garden last year. Waxaan talaalay geed. So marka diidan waxaan usoo qaadanay waxaan ka hadlaynaa geedka aan la talaalay sanadkii lasoo dhaafay, treegan oo la talaalay sanadkii lasoo dhaafay. oo wuxuu ka hadlayaa sifadiis iyo siduu noqday maadaama sanadka soo wareegatay. The tree geedka has grown big. Geedkii wuu weynaaday. Okay, dhankan waxaa ku haysanaa asna can you open oo furitaan albaab ama daaqad waxay doontaa ahaato ama qaanad. Can you open ma furi kartaa the window? Can you open the window? Deedan waxaan ka hadlaynaa marka qol baan ku wada jirnaa ama gurigaan ku wada jirnaa fadhi ha ahaado, hal dariishadu leeyahay. Marka waxaa rabtaa dariishadaas in la furo, qofaa waxaa ku leedahay can you open the window? Dii waxa usoo qaadatay waa hal dariisho oo dariisho kale ma laha meesha. Can you open a window? Haddaa dhahdid waxay ka dhigan tahay qolkaas daaqado badan uu leeyahay, mid uunba ma furi kartaa, daaqad ma furi kartaa, daaqadeedna ha ahaato, laakiin kan wuu ka duwan yahay, waa hal daaqad. Window waa daaqad. Can you open the window? Daaqada ma furi kartaa. The man ninka in the grey suit is my boss. Ninka xiran suudka midabka greyga ah. Greyga waa midabka u eg midabka dameerka. Midabka dameerka waxaa la dhahaa grey. And the man ninka in the grey suit is my boss. Ninka jaakada ama suudka greyga xiran waa booskayga. Boss waxaa la dhahaa ninka u shaqaysid ama qof uun gabar ha ahaato ama nin ha ahaado qofka u shaqaysid waxaa la dhahaa boss. The man marka deedan waxaa usoo qaadanay hal ninaan ka hadlaynaa oo kaliya ninkaas uu xiran yahay hal jaakada suud ah. Dhowr rag hadday wada taagan yihiin, mid ka mid ah wuxuu xiran yahay jaakad ama suud grey ah. Marka ninkaas gooniga aad tilmaamaysaa oo qofka kula jooga u tilmaamaysaa qofkaas ah jaakada ama suudka greyga xiran waa booskayga inaad dhahdaa rabtaa. The man diidan waxaa usoo qaata waxaa la ogyahay waa hal nin bisa jaakad suud xiran oo grey ah. Marka ninkaas gooni u tilmaamaysaa. Marka ereygan di waxay fasiraysaa ama cabiraysaa waxaa ka hadlaysid wax specific ah, wax qaas ah inay ka hadlaysid cabiraysaa. The man in the grey suit is my boss. Okay, waa isla fahnaa malaynaa. Waxaa inoogu xigo where is the monkey? Aaway daanyeerkii. Where waxaa waa adiga aaway ay ka taagan tahay, aaway ama meye. Where is the monkey? Daanyeerku aaway ama daanyeerka aaway. Where is the monkey? And the monkey di waxa usoo qaadan asagana waxa sababta usoo qaadan di waxay tahay meesha hal daanyeer joogo. Marka daanyeerkaasa meesha lagu arkin, marka waxaa leedahay meye daanyeerkii ama aaway daanyeerkii intuu ka baxay. Where is the monkey? Marka waa hal oo lisla og yahay. Marka waa specific monkeygan hadda oo di sababta loo soo qaataas ay tahay. Waxaa ku xiga marka hoose the dog eyga that bit me ran away. The dog that bit me ran away. Eyga i qaniinay wuu cararay. Bit waa qaniinyo oo ficil la soo dhaafay ah. Eyga i qaniinay wuu cararay. Marka that waa soo barnay, waxaan dhahnay kaas aan ka wadnay. Marka that erayadan that these dots those waxyar waxay isbedelayaan macna ahaan waxaan muxuu ahaa weyneyn waxaan saas weyneyn macnaheedu isbedelaan. And the dog that bit me ran away. Af Soomaali erey ugu dhow fasir karo waxay tahay marka eygii i qaniinay wuu cararay. Eygii i qaniinay eeya ka hadlaysaa mid gooni ah ka hadlaysa. Eygaas waa specific. Marka the dog that bit me ran away. The dog that bit me ran away. Eygii i qaniinay wuu cararay. Marka diidana soo qaadan waa specific. Eygaas waa hal eeyo nooc gooni ah, specific ah ama khaas ah. Okay, I
I saw waxaan arkay I saw waxaan arkay ama waan arkay the elephant maroodiga at the zoo waxaan ku arkay beerta xayawaanada. Zoo waxaa la dhahaa beerta xayawaanaadka lagu xanaaneeyo oo loo daawashada taga waxaa la dhahaa zoo. Zoo waa xadiiqatul xayawaanaat carabi ahaan. I saw the elephant. And diidan ayadana sidoo kale elephant waa xayawaan specific ah, waa hal maroodi oo meeshaas joogay oo dadkii dhanba muxuu ahaa wad arki karaan. Marka adiga waxaa rabta inaad sheegtid maroodigaas ina adiga soo aragtay, weliba waxaa ku soo aragtay at the zoo xadiiqatul xayawaanaat ama beerta xayawaanada. diidan oo kale waxay ka turjumaysaa zooga inuu hal areadaas ama meeshaas oo kale hal beer xayawaanaad ay ku taalo. marka waxaa rabta in dhahid beertaas xayawaanada waxaan ku soo arkay maroodiga. maroodiga laga hadlayo waa maroodiga waa specific, zoo waa specific ama khas. I saw the elephant at the zoo. waxaan soo arkay ama waxaan ku arkay maroodiga beerta xayawaanadan ku arkay maroodiga. beerta xayawaanada waxaan ku arkay maroodiga. intaas waxaa inoogu dhan cashirkeenii 8aad qaybtiisa 2aad oo aan filayo si fiican markaan isla fahanay ama si fiican aad wada fahanteen. oo kii hore faahfaahintiis weli wuu daba taagnaa isku xiran yihiin, marka faahfaahin ahaan uga dhiganay qaybtii 2aad u samaysanay. marka intaanan cashir kale aan ku kulmino waxaan idinkaga tagay khayr baraari barwaaqo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaan idin leeyahay ramadaan kariim. mac salaama.